maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ka soo saaray ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cabduqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya amarkaas. kadib kulan ay magaalada caasimadda ah Muqdisho ay ku yeesheen guddiga amniga ayaa waxa ay ka soo saareen amaro dhinaca amniga ah oo la farayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee shacabka ku nool gobolka Banaadir. kulanka amniga looga hadlayay ayaa diiradda lagu saaray amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo saacadii la soo dhaafay ay ka dhaceen falal amni darro. waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo kulanka goobjoog ka ahaa oo ka hadlay xaaladda guud ee amni ee magaalada Muqdisho isaga soo saaray amaro dhanka amniga ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso ayaa sheegay in marnaba magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska ciidamada militariga Soomaaliya. waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo marar qaarkood lagu arkayo gudaha magaalada iyagoo ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya. mas'uuliyiinta staafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto nidaam ku jiro ay ula hadlaan isu sheegaan. haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan. marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta istaafkoodu inay mas-uul ka noqdaan. waxaan ognahay istaafyada qaarkood oo in ay xabado marmarka qaarkood furaan yacni ah isla xisaabtan dhaba baa jira. qaarkoodna waxaan u gudbinay maxkamadda ciidanka qalabka sida. marka qof walba mas-uula ha ogaado asaa mas-uulka ah istaafkiisa. iyadana waxaan rabnaa arrintaas in dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso ayaa waxa uu digniin culus u diray milkiilayaasha gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho sida bajaajta iyo gaadiidka kale isagoo sheegay in gaadiidkooda looga baahan yahay inay soo diiwaan galiyaan. waxaana sidoo kale uu sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee Muqdisho oo diiwaan gashan ha yeeshee gaadiidka qaarkood iska iibiye. waxa uuna sheegay in gaadiidkaas ay iska iibiyaan haddii dhibaato markaasi magaalada Muqdisho oo dhanka amniga uu geysto mas-uuliyadooda ay iga qaadi doonaan. midda kale oon rabno inaan digniin u jeedin waxay tahay ma leedahay bajaaj ma leedahay gaadiid haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen. haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay mas-uuliyadda adaa qaaday. adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto. si haddaba taas looga hortago bajaajleydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya. ma leedahay bajaajka isdiiwaangeli. haddaadan isdiiwaangelin muwaadin dhab ah Soomaali aadan noqon canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin haddii waxay noqonaysaa qof u adeegaya cadowga. ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow. halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada Al-Shabaab. ayagana inaan hal meel uga soo wada jeesano oo aan la dagaalno ayuu qorsheenu yahay. waxaan rabaa inaan kasii wada shaqeyno. si kastaba amarkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee la xiriira dhanka amniga isla markaana sheegay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho aan lagu arki karin askar ku labisan dareeska militariga Soomaaliya ayaa ahayn mid ku cusub magaalada Muqdisho. amaradaas waxaana hore u jirtay in wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya tiro ka dhowr jeer ay mamnuucday in magaalada caasimadda ah Muqdisho aan lagu arki karin gabi ahaanba askar ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya. ha yeeshee aysan muuqan go'aamadaas kuwili dhaqan gala isla markaana magaalada caasimadda ah ee Muqdisho weli lagu arkayo askar ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya. waxaana talaabadan amarkan ku soo aadaya xilli barqadii rag ku labisan dareeska ciidanka militariga la sheegay inay ka mid ahaayeen ururka Al-Shabaab ee weerareen bar control oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ay ku leeyihiin isgooska Seybiano degmada Hodan ee gobolka Banaadir. waroo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in 2 nin oo dareeskaas ku labisnaa kana tirsanaa ururka Al-Shabaab ay toogteen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulamo looga hadlayay doorashada Galmudug waxa uu ka wadaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dhinaca kalena odayaasha cadaada ayaa sheegay inaysan la kulmeyn Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya inta uu ka laabanayo go'aankii uu uga dhawaaqay caasimadda Dhuusamareeb. Maxamed Cabdi Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa xalay kulamo gaargaar ah wuxuu magaaladaas kula qaatay xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta xukuumadda ku jira ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee la socday isaga iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee xilalka ka haya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kana soo jeeda magaalada Gaalkacyo. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday mas'uuliyiintaasi in uu la kulmo hoggaanka bulshada magaalada Gaalkacyo si la mid ah meelihii uu tagay sida uu bulshada ku nool hoggaankooda ugala hadlay mideynta iyo isu keeninta shacabka ku nool deegaanada Galmudug si loo dhiso maamul ay ku qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada Galmudug. ra-iisul wasaaraha ayaa maanta lagu wadaa inuu la kulmo waxgaradka magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu doonayo inuu kala hadlo sida qayb uga noqon lahaayeen dadaalka dowladda Soomaaliya ay hormuudka ka tahay ee lagu dhisayo maamulka Galmudug iyo shirka dib u heshiisiineed ee la filayo in bishan gudaheeda uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee uu kula kulmay bulshada ku nool deegaanadaasi waxa uu kala hadlay sida ay maamul mideysan u samaysan lahaayeen dowladda Soomaaliyana ay u fududeyn lahayd dadka ku nool magaalada Cadaado ayaa weli ka goos adeegaya la kulanka ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyaga oo shuruud ku xiray la kulankiisa waxaana ay sheegeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inay la kulmayaan in ay la kulmi doonin inta uu weli ku taagan yahay go'aankii kowdii bishan uu ka dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee ahaa in magaaladaas ay martigelinayso shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada hoggaanka Galmudug. waxaana waxgaradka ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha kaliya ay kula kulmi karaan isagoo wax ka bedela go'aankaasi ama ay la kulmayaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb qaybna ka ah waxgaradka reer Cadaado Cabdi Axmed Maxamed Suldaan Cabdi Nuur oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaanay jirin xilligan sabab ay ula kulmaan ra-iisul wasaaraha maadaama ra-iisul wasaaraha go'aan uu gaaray shacabka Cadaadana uu cad yahay mowqifkooda. waxa uu qabo fakarka uu qabo inuu kula soo laaban doono walayaashii baarlamaanka iyo golihii fulinta iyo madaxweynihii iyo dadkii maaragtay meeshaana ka bacdi markii waxaas wax ka soo baxaan ka bacdi in go-aankii la qaadanayo si wada jira loo qaataa noo saasaan malaynaynay laakiin ku dhawaaqida Dhuusamareeb iyo gobasha taalla iyo waa lagu dhisaya iyo waa laga dhacaya iyo wax la filaya ma ahayn afkaladaad bay ummadda ku noqotay guud ahaanba cadaadana hadda go-aankaas haddii ra-iisul wasaaruhu qaatay maaragtay wax hadda dambe oo laga shiraa meesha ma yaalin wixii isbedel oo reaction oo asigaa ka yimaada baa laga warsugaya maaha shee cadaada waxa ay rabaan waa sheegeen dadkii 11 waxay rabaan waa sheegeen gobashu maaragtay waxa ay ka qabaan waa sheegeen dib u heshiisiinta inay rabaan waa sheegeen laakiin qaabka loo maray baan saxayn saasaan u aragnaa anagu waay magaalada Dhuusamareeb soo ma ogdiin inay tahay caasimadda maamulka ma diidarin maxaa ku jaban marka hadii shirka dib u heshiisiinta lagu qabto shirka dib u heshiisiinta marka waa lagu qabto shirka dib u heshiisiinta waxba kama qabno laakiin xarunta baarlamaanku Cadaadey ku taala doorashada xaq ayada u ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa in magaalada Gaalkacyo marka uu ka soo dhamaado inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho waxaase suuragal ah inuu dib ugu laabto magaalada Cadaado oo weli xubno dowladda ka tirsan kana soo jeeda deegaanadaas ay doonayaan inay ku qanciyaan waxgaradka reer Cadaado in is-arag uu dhex maro ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxgaradkaas inkastoo waxgaradka ay ku adkeysanayaan inay doonayaan la kulanka madaxweynaha Soomaaliya. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo ka dhacay degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose. Cali Xasan Cali ayaa inoo faahfaahinaya. qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose waxaana la sheegay in qaraxa uu qabsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in gaari hoomey ah oo ka yimid tuulooyin hoostaga degmada Dhoble uu qarax qabsaday gaarigaas oo ahaa mid subaxdii hore ee shalay caana ka qaaday degmada Dhoble ha yeeshee markii uu soo laabtay uu qaraxaasi qabsaday waxaana inta la xaqiijiyo ku dhintay qaraxaasi 3 qof halka 3 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. isku duwaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland ee degmada Dhoble
nuur biixi oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 3 ruux halka 2 kale ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid ah dhaawaciisa uu yahay mid culus wuxuuna tilmaamay in dadka dhaawacyada ay soo gaareen la geeyay isbitaalka ku yaala degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose لما شاف صدق قصوى لا والله كل خير والله لو شيء كربا وباجوك السعودي من السعودي وحقر حوالي لا كل عيب في هنا لما جربنا يرباجي السعودي وإمامكم يتني كل اللي يوم بحياة قد كان رمي وبناي باورتو هاي كوع عنها كان قد كده رمي وبناي ما كل ذكر لي واحد عيد جلسي أما اللي ما عيد جلسي اللي تمي من الله شيء كره ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay qaraxa miino ee qabsaday gaariga ay wateen dadka shacabka ah ee ka dhacay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose